سي 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 يا طويل العمر سي. بسم الله الرحمن الرحيم. dareenkayga maantay ma la qiimay karo. waxaan soo xasuusanayaa waayo berigii aan dhalinyarada ahaa Soomaaliya kooxihii maxaa la yiraahdaa halgan iyo heegan iyo maxaa la jeenya iyo minishibiya iyo maxaa la yiraahdaa horseed iyo raggii maartay laacibiinta ahaa maantay oo aan oolu joogo 6 maartay kooxood oo afarna ay ka socdaan reer maxaa la yiraahdaa oolu labana ay ka socdaan gobolada Andariska aan nahay Kayaan iyo Rovaniemi dhalinyaro yar oo aad ugu bisil maxaa la yiraahdaa kubadda ugu bisil waxay ii gelisay farxad aad u weyn oo ay xasuusinaysa taariikhdaasi aan soo sheegay waa malak soo koobi karo farxadayda dhalinyaro maartay haddana meeshan in la isbarto oo maartay maxaa la yiraahdaa socialka xaqiisa la isfahmo oo maartay aan isla shaqeyno aan dareemaynin xataa inaanu nahay dad oo minority ah oo halkan aan isleenahay maanta waxaaba joogtaanba wadanka qarankii ba joogtaan waxaan rajeynaa doonaa inay qaranka u ciyaari doonaan mustaqbalka waxaan aad ugu mahadinayaa abaabulayaasha oo uu ka mid yahay maxaa la yiraahdaa Dr. Xirsi Macallin Maxamed maxaa la yiraahdaa Macallin Xabiib iyo dhalinyaro Mawlid dhalinyaro aad u firfircoon waxaan rajeynayaa inay arintan ay noo sii socoto oo aanu qabanno koobabkaani aan ku soo celcelino. السلام عليكم maanta waxaan joognaa koobkii Soomaali Awlu Cup baan joognaa wasaadkii ugu horeeyay qabanay halkan waxaa jooga odayaasha magaalada ugu horeeyo walka Shaafici soo dhow amaasanta macallin waxa waaye maxaan dhahaa isheeg caaw si fiican oo ciyaarna maanta waxaan rajeynaynaa insha Allah si qurux badan noogu dhamaaso qurux badan oo ku socda sanadaha socdaan waxaan rajeynaynaa inaan ka badan iyo mataqaana isheeg wax ka sii duwan aan sameeyno insha Allah aad u dhiirigelinaa insha Allah sanadka koobka waxaa ka soo qayb galay magaalooyin badan ay kamid yihiin Rovaniemi iyo Kayaani iyo Awlu marti qaadaysa koobka yaa u rajeynaysa haddii la dhaho yaa u rajeynaysa magaalada u rajeynaa laakiin waxa arkeena kooxda qaado waxa soo dhaweynaa nasiib waa leedahay aad soo dhaweynaa insha Allah kooxda qaado in kastoo jeclaan in Awlu qaado dhalinyarada soo aabishada aad ugu dhiirigelinaa waa saaxiibtinimo maadaama reer Awlu tahay koobka sanadka yaa u rajeynaysa inay qaadaan anigu warta waxaan jeclaan lahaa inay Awlu qaato wayna ugu cadcadahay laakiin si kubaddu waa barmadow iyo barcad haddii saaxiibadayda kale gobolada kale ka yimina qaadaan ma xuma laakiin anigu maadaama reer Awlu ahay waxaan jecelahay inay Awlu qaato Awlu baan rajeynayaa inay qaato. Bismillahir Rahmanir Rahiim. maanta halkan waxa ku ciyaaraya kooxo kala duwan gobolka Bohyoska magaalada Awlu waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee kala duwan ee gobolada kala duwan ka yimid maanta halkan ku ciyaaraya waxaan rajeynayaa dhammaan inay macnaha la sii dhiirigelin u noqoto markii ugu horeysay weeyi halkana teamkana waxa wata Macallin Maxamed oo qabanqaabada iska lahaa marka waxaan rajeynayaa inay gobolkan anagu maadaama reer Awlu nahay inay badiyaan laakiin haday gobolada kale dhalinyarada Soomaaliyeed ka yimaadeen iyaga laftoodu haday koobka qaadaan dib uma aragno waan ku faraxsanahay isdhaxgal bulsho iyo dhalinyarada isbarata yaan rajeynayaa inaan macnaha hore ugu sii socoto sanad walba insha Allah finalka hadda ugu dambeysay daawanayna teamkayga waa la soo reebay hadda waxa final jooga oo hadda wada ciyaaraya teamkii Mawlid uu watay kabtanka uu ahaa iyo Rovaniemi ama haddaan si kale u dhaho Awlu iyo Rovaniemi waa final jooga ama reer Awlu hay Awlu waan taageeraya koobku guriga ku haraya roobo
شيل 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 يا طويل العمر شيل شيل يا طويل العمر شيل شيل البطولة شيل شيل البطولة شيل شيل